waxa uu ahaa nin dhalinyaro ah, aqoon-yahan ah, xushmad badan, afgaaban, ahmiyadana siiya shaqada uu bulshada u hayo. Xalay ayaa magaalada Beledweyne dabley hubeysan waxay ugu dishay taleefan dartii. Rabbi naxariistiisa ha ku soo dhaweeyo Cabdisahal Shuuriye Xuseen. Dhammaan dhalinyarada reer Hiiraan gaar ahaan reer Beledweyne saaka waxay u tahay maalin tacsi ah. Waxa ka baxay wiil dhalinyaro ah oo aad iyo aad muhiim ugu ahaa bulshada. dabley hubeysan ayaa xalay xilli uu magaalada ka sii hooyanayay gurigiisa waxay ku dileen wadada iyagoo sababta ay u dileen ay tahay in ay ka qaataan taleefan uu watay oo kaliya. dableyda dilka u geysatay Allah u naxariistay Cabdisahal Shuuriye Xuseen weli ma jirto cid soo qabatay, mana jirto cid garanayso halka ay jaan iyo cirib dhigeen. markii ay dilka geysteenna si bareer ah ayay tartiib isaga dhaqaaqeen. Cabdisahal waxa uu ahaa gudoomiyaha maamulka maaliyadda degmada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. dadka ay shaqo wadaagta ahaayeen iyo dhalinyarada u dhow dhammaan waxay qireen inuu ahaa nin aad iyo aad u xushmad badan, shaqo yaqaan ah, isla markaana ahmiyadda siiya kaliya waxyaabaha asiga quseeya. magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan muddooyinkii u dambeeyay amni darradeedu waxay noqotay mid faraha ka baxday. dhacdada kale waa ay ka sii xun tahay. dadkuna waxay ku jiraan Allah u naxariisto, Allah u boogadhayo iyo Allah naga qabto. ma jirto intaa wax dhaafsiisan oo ficil ah oo ay la imaadeen dadka degan Beledweyne ama ciidamada amniga ee kala nooca ah ee ku sugan degmada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. falalkan arxan darrada ah ee ka dhacaya magaalada Beledweyne ee midba midig ka xun tahay, maalin kastana aan goobjooga u nahay, isla markaana aan cid wax ka qabanaysa aysan jirin, waxa geysanaya kooxo badan oo isuwan oo qolo walba ay iskeed iyo dan u gaar ah wax u haleynayso. maadaama iyagoo ka faa'iideysanaya magaalada oo aysan ka jirin cid amnigeeda mas'uuliyad iska saarta ama soo qabata ciddii faldambiyeed geysata. haddii aanan maanta ficil la sameynin, laga hortegin tuugada iyo mooryaanta iyo argagixisada isbarkan ee falalka arxan darrada ah ka wada magaalada Beledweyne, waxa xaqiiq ah in falal ka sii xun oo aan ka sii yaabno aan maalin walba goobjoog u noqon doono. dad badan oo nagu qiimo badan maantana nala joogana aan u tacsiyeyn doono ayagoo ku dhintay falal noocan ah oo arxan darro ah.